Hadba sida labada qof ay isugu faraxsan yihiin iyo xiriirka labadaas ruux ka dhexeeya waxa uu dhibaa dad markaas aan jecleen midowga ama wada noolaanshaha lamaanayaasha. Dadkaasna waxaa loogu yeeraa cadow horumardiida. Sida aan la wada soconno dhammaanteen, lamaanayaasha daada yar Anuush iyo Cali Baba waxay horaan ku midoobeen nolosha, waxaana ay doorteen ka rumaynta xiriirkoodii jaceylka oo waqtiyo badan socday. Waxaa mideeyay calaf, waxaana u dhismay guri ay ku taamayeen muddo badan. Balse arrinta cajiibka ayaa waxay tahay cadow aan u muuqan ayaa nolosha lamaanahan dhibsanaya, waxaanay dadkaas ay sameynayaan wax aan wanaagsaneyn. Inkastoo guriga lamaanayaashan uu kalsooni ku dhisan yahay oo hadal qofeed uusan ku dumaynin, laakiin shakhsiyaadkan ka hadlayo waa kuwo caadaystay in fariimo qaldan ay bulshada u gudbiyaan. Waxay samaysteen ciwaano TikTok, waxaana ay soo qaadanayaan sawirada Anuush iyo Cali Baba iyagoo leh Anuush waa la furay iyo Cali Baba gabadha ayuu qalbiga ka jabiyay. Inkastoo wax run aysan ahayn sheekadaasi, balse dad badan oo aan ka warqabin xaaladda lamaanahan ayaa hadallada dadkaas u qaata wax runa. Nolosha ka dhexeysa Cali Baba iyo Anuush waa mid ku dhisan farxad iyo galgacayl, mana jiro khilaaf labadooda ka dhexeeya xilligan. Mar aan la xiriiray Cali Baba, waxa uu hadallada dadkaas ku tilmaamay kuwo aan wax ka beddelaynin farxadda uu haysto. Waxaana uu sheegay in Anuush ay tahay iftiinka noloshiisa oo aysan suurtagal ka ahayn inuu xumaan yar u quro. Dhowaan Cali Baba iyo Anuush waxaan la soconnaa inay tageen magaalada Muqdisho, balse sababta ugu weyn oo labadooda halkaas ay u tageen waxaa qayb ka ah in Anuush la soo baro familka Cali Baba. Sidaa daraaddeed, waxa Cali Baba durba uu baray Anuush hooyadiisa iyo dhammaan walaalihiisa. Magaalada ayuu gabadha u shiday, waxaana uu kaga dhigay magaalada inay tahay sida boqortooyadii oo kale, meel ay ugu noolaan karto.